Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada casharkeennii 8aad oo aynu kaga hadli doono waxa loo yaqaano code formatting-ka. Code formatting-ku waxa weeyaan inaad markaad code qoraysid aad u qortid si nadiif ah oo clear ah. Tusaale ahaan casharkii ka horreeyay waxaynu soo baranay in command line-ka loo isticmaalo in lagu dul qoro line of code iska qoraysid. oo markaad line code qortid inaad ku dul qoratid command line ama ujeedada line kan code kan aad u isticmaalaysid. Sida darteed code formatting-ku markaan ka hadlayna waxa weeyaan markaad code qorayso inuu code-kaagu nadiif ahaado, very clear ahaado, si qurux badan aad u qortid, inaanu lahaanin wax maaragtay layman code oo bilaa faa'iido iskaga dhex jira code-ka aanay jirin. waayo kuwaas oo kale waxay ku keenayaan haddii aanay wax shaqaa kuu qabanin inay code-kiina ku dhex qoran yihiin inay hadhow toole file size-kii code-kaaga weyneeyaan oo kale oo file size-kii code-kaaga uu large noqdo. sidoo kale website-kaaga markay browsers ku akhriyayaan ama la loading garaynayo inuu very slowly noqdo. so marka code formatting-ku waxa weeyaan waa very important in qofka developer-ka ama programming-kii code-ka qoraya inuu u qoro si nadiif ah, bilaa error, code aan waxba tarayn oo meesha iskaga dhex jirin inuu ka ilaaliyo, ka remove garayo, shay kasta inuu sidii saxda ahayd ee syntax-ka ahayd u qoro. taasina waxay faa'iido keenaysaa in code-kiisu bilaa error noqdo, in lacala haddii xitaa error ku yimaado uu si fudud u fixed garayn karo. sidoo kale maxay ahayd in waxa loo yaqaano usability iyo readability in isticmaalka iyo akhrinta browser-ku uu akhriyaya ay fiicnaato oo website-kaaga marka la soo galayo uu very fast load noqdo ama si dhaqso ah uu soo kaco. website-yada waad aragteen qaar markaad gashaan aad URL-keed enter siisaan aad sugaysaan saacad intuu soo load garaysmayo, because website-yadaas oo kale waxaa laga yaabaa in code-kooda uu iskaga jiro bug errors badan ama code badan oo wax shaqaa qabanaynin oo loo baahnayn. taasina waxa weeyaan waa problem. marka code formatting-ku waxa weeyaan inuu qofka programmer-ka ama qofka code-ka qoraya uu ka warhayo waxaan uu qorayo inuu sax yahay, inuu sidii saxda ahayd u qoray, inaanu code aan waxba qabanaynin inuu meesha iskaga dhex qoro looma baahna, uu waxaas oo dhan maxay ahayd uu fahmo. sidoo kale inuu line kasta oo code uu qorayo uu command line-kan aynu hadda qoraynay ama casharkii hore aynu kusoo baranay inuu isticmaalo line-ka code-ka aan qoray shaqadaas uu qabanaya, line-ka code-kan qabay shaqadaas uu qabanaya, oo wixii very nadiif, very clear uu noqdo ayaa muhiima. so code formatting-kuna taa weeyaan. so inaad taana fahantaan iyo faa'iidooyinka ku jirana waa kuwa aan soo sharaxay weeyaan. casharka ku xiga intaynu ku kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo practice wanaagsan.